mudaharaad lagaga soo horjeedo xadhiga lagula kacay Suldaan Abshir Maxamed Ducaale ayaa maanta ka dhacay xaafadda Sisibta ee magaalada Boorama. Mudaharaadkani ayaa waxa lagaga soo horjeeday xadhiga maalintii shalay lagula kacay Suldaan Abshir. Ciidamada bilayska ee magaalada Boorama ayaa goobtaasi soo gaadhay isla markaana asaas ku kala dareeriyay dadkii banaanbaxa ku dhigayay goobtaasi. waxaana goobtaasi ku dhaawacmay wiil dhalinyaro ah oo isoo ku sugnaa goobta mudaharaadku ka dhacay isla markaana ku dhaawacmay xabadii ay ridayeen ciidanka bilayska ee gobolka Awdal. dhaawaca wiilka ayaa waxa la soo gaarsiiyay cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama. waxaana cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama kula kulanay waalidkii dhalay wiilkani ku dhaawacmay maanta mudaharaadka. ana wax ka weydiinay qaabka uu soo gaadhay dhaawacani iyo sida xaaladiisa caafimaad haatan lagula tacaalayo cisbitaalka weyn ee magaalada Boorama. ayaa waxa uu tilmaamay horta kulli aan lama joogin markay wax ku dhaceen laakiin inuu markay kurkuri baan ka raacay meesha wax ka dhacayeen dalito xabad baa igu dhacay anoo lugteedii wali dhulka ka soo qaadinaya xabad ku dhacday sida waan dib u dhacay sida deeyna ninkii xabad igu dhiftay waan arkay buuri laakiin wajigiisa waan garanayaa laakiin qoon kale ma lahayn buuri marka saas wax gaadhay buuri meeshan sisibta la dhaawayaan oo qaybta xagga fardaha xigta markii xabaddu soo ugu dhacday telefoon bigu la soo hadlay waan cararay marka aanu xaggan seerahan joogay waan cararay marka hortayba hadana la qaaday waan la hadlo waxaan xayaad baan ku sii wadnaa xayaad baan hadana uga sii horeeyay dib baan ugu soo noqday hadana waan geeyay xayaad marka hadana waxay noo soo dirtay dhakhtarkan weyn iyo magaranaysa saldhigii deesaan uga qaadano dhaawac muujinti burbur lafta ay sheegeen oo qalliin u baahan lugtay ku dhacday xabadu laftooda bursantay ilaa marka qalliin baan galnaaday inkastoo xidhiidho kala duwan la sameeyay laamaha amniga ee gobolka Awdal ayaa haba yaraatee aan suura galin